الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. درسيين وحو كبلاب ميا غزوة الخندق أما غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب وحد عدد سندي شانات وعاكلو لغو مقعابا غزوة الخندق. marka غزوة الخندق ليراهدو waxa la milicsanayaa godadkii la qoday ee macnaha dhufayska allaha. marka غزوة الأحزاب ليرaahdana waxa la milicsanayaa ciidankii kala duwanaa ee isbahaystay ee Madiina ku soo duulay. Ahzaab waxay ahayd qabaa'il Carbeed iyo Yuhuud isa soo bahaystay. isuna soo bahaystay inay Madiina weeraraan. magaalada Madiina way go'doomiyeen oo isweer ay ka qabteen. tiradooduna waxay ahayd 10,000 oo nin. waxa madax u ahaa Abu Sufyaan ibn Harb. haddaba markay ciidankaasi Madiina soo weerareen, rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu faray in godad la qodo oo magaalada lagu hareereeyo, gaar ahaan meelaha magaalada laga soo gali karo ee wadooyinka ah. taladaana waxaa lahaa Salmaan al-Farisi. gaalada ay soo bahaystay magaalada Madiina waxay isweer ka hayeen 15 maalmood, ilaa markii dambe kelmadoodii ay iskhilaaftay. ilaahayna uu ku saliday dabayl daran iyo ciidamo aan la arkaynin. dabayshaas oo fujisay teendhooyinkay dhisteen, rugtay eryahay wax ku karsanayeen. deetana markay intaas ku dhacday way yaaceen oo way noqdeen. غزوada waxaa ku xigtay غزوة Bani Qurayza. Bani Qurayza waxay ahaayeen saddexdii qolo ee Madiina deganaa ee Yuhuud ahaa mid ka mid ah. ballantii Nabigu sallallahu alayhi wasallam uu la galay ayay ka baxeen. waxay soo raaceen gaaladii Carbeed ee isa soo urursaday ee Madiina ku soo duulay. waxaanay muslimiinta u muujisteen cadaawad fara badan. sidii Bani Qurayza iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay ku ballameenna waxay ahayd in Madiina la daafaco oo cadow kastoo weeraraya laga daafaco. may daaficin yagu, laakiin cadowgii ayay soo raaceen. haddaba markii ay dhamaatay غزوة Khandaq, ilaahayna uu jabiyay ciidamadii soo gaashaan buuraysay, dhulkoodiina ay ku noqdeen, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray rasuulka in reer Bani Qurayza lagu duulo. rasuulku wuu baxay isagoo 3,000 oo ciidana wata. 25 habeenna uu go'doomiyey oo isweer ayuu ka hayay. markii dambe ayay isdhiibeen. xukunka la xukumayana waxaa loo daayay Sacd ibn Mucaad. Sacd ibn Mucaad ayaa yimi, waxaanu xukumay in raggooda la laayo, dumarkooda iyo ubadkoodana la qafaasho. rasuulku sallallahu alayhi wasallam xukunka uu ku farxay, waxaanu sheegay inuu waafaqay Sacd xukunkii ilaahay ka xukumay fawqa 7 samaawaat. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu faray in xukunka la fuliyo, waana la fuliyay. taasina waxay ahayd abaalmarintii lagu abaalmariyay, waayo ballantii ay galeen ayay buriyeen. sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu ku xigsiinayaa mas'alatu Zaydin wa Zaynaba. Zayd iyo Zaynab masaladoodii. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu Zaynab bintu Jaxshin u doonay Zayd ibn Haritha. dabadeetana way diiday markii hore, haddana dib ayay ka ogolaatay. Zayd ayaa guursaday oo la aqal galay. markii dambe ayuu haddana rasuulka sallallahu alayhi wasallam uga soo cawday. rasuulku wuxuu amray inuu sabro, xaaskiisana haysto. waxaanu ku yidhi: amsik calayka zawjaka wattaqillah. xaaskaaga hayso, ilaahayna ka baq. haddaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu sidan leeyahay, waxa waxyi ahaan uu ku ogaaday in Zaynab uu guursan doono, waana arrinka ilaahay uu leeyahay: watukhfii fii nafsika ma Allahu mubdiih. naftaada waxaad ku qarinaysaa shay ilaahay muujin doona. watakhsha annaasa, dadka ayaad ka baqaysaa inay ku yidhaahdaan wuxuu guursaday xaaskii inankiisu qabay. wallaahu axaqu an takhshaah, ilaahay baana mudan inaad ka baqdo. haddaba ugu dambayntii Zayd ibn Haritha Zaynab bintu Jaxshin wuu furay.
dabadeetana rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa guursaday iyadoo lagu burinayo caadadii ay carabtu lahayd ee ahayd at-tabanni ama ilma ka dhigasho ruuxu uu ilma ka dhigto cid aanu dhalin waayo rasuulku sallallahu calayhi wasallam Zayd ibn Haritha wuxuu ka dhigtay ilmo waqtigii jaahiliga isagoon dhalin sidaa daraaddeed ayaa wuxuu ku caanbaxay Zayd ibn Muhammad waxaanay u arkayeen qofka ilmaha laga dhigtay inuu saa ilma ku noqonayo sidaasina waxay ahayd dhaqanka ay carabtu lahaayeen haddaba rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka baqayay naftiisana ku qarinayay ilaahayna sheegay inuu muujin doono waxay ahayd in Zayd ibn Haritha uu Zaynab furi doono rasuulkuna uu guursan doono marka wuxuu ka baqay rasuulku sallallahu calayhi wasallam inay carabi ku ceebayso oo ay tiraahdo wuxuu guursaday xaaskii inankiisu qabay Allah wuxuu yidhi falamma qadaa Zaydun minha wataran zawwajnaakaha markii uu gutay Zaydantiisii zawwajnaakaha waanu ku guurinay likay laa yakuuna cala almu'miniina xaraj si aanay mu'miniinta dhibi ugu sugnaanin fii aswaaji adciyaa'ihim in ay guursadaan kuwa yaga loogu yeedho ee aanay dhalin dumarkooda idaa qadow minhunna watara haddii ay dantoodii ka fushadaan kuwa la sheegtay oo ay furaan wa kaana amrullaahi mafcuula arrinka ilaahayna wuxuu ahaaday mid dhacaya arrinkaa ujeeddada ugu weyn ee laga lahaana waxay ahayd in ilma ka dhigashada cid aan la dhalin ilma laga dhiganayo la xaaraantinimeeyo allahna subxaanahu watacaala wuxuu yidhi udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah waxaad ugu yeedhaan aabbayaashood taasaa cadaalad ah ilaahay agtiisa haddaba sannaddii shanaad waxaa la faral yeelay jilbaabkuna waxa weeye maradan weyn ee asturaysa gabadha jidhkeedoo dhan min alqarni ila alqadam marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood gaar ahaan inta laga farxasho waxaa kaloo jira xijaabku waxa weeye teed oo dumarku markay gurigooda joogaan ee wax la weydiinayo ciddan weydiinaysa ajnabiga ah waa in uu teed u dhaxeeyaa teedkaas oo beddel ka noqonaya jilbaabkii sannaddii lixaad ee hijrada ayaynu gudbaynaa sannaddii lixaad ee hijrada waxaa dhacday ghaswatu bani laxyaan banu laxyaan waa qabiilo magaceed rasuulkuna wuu weeraray khiyaano ay sameeyeen daraaddeed rasuulku nimankan wuxuu diray cid diinta barta dabadeetana ciddii loo diray ayay dileen qaarna ay reer Maka ka iibiyeen rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuu weeraray isagoo 200 oo saxaabi oo gaadiid saaran wata dabadeetana way kala yaaceen dagaalamo dhicin waxaa kaloo dhacay ghaswatul ghaaba ghaswadan waxay ka dambeysay sulhul Hudaybiyah al-ghaaba waa meel u dhaxaysa Maka iyo Madiina rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu baxay isagoo 500 oo nin wata si uu ula dagaalamo niman caraba oo hala uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam lahaa soo weeraray inankii la joogayna dilay markaa waa la isku dhacay waxaana dhintay ruux muslimiintii ka mid ah iyo 2 mushrik oo gaaladii ah sannadan lixaad waxaa kaloo dhacay sulhul Hudaybiyah waa heshiiskii Hudaybiyah lagu galay Hudaybiyahna waa ceel u dhaxeeya Maka iyo Madiina dib ayaanaynu ka tilmaami doonaa sannadan lixaad waxaa islaamay Thumaamah ibn Uthalah oo ahaa sayidu bani Xaniifa reer bani Xaniifa sayidkoodii reer banu Xaniifana waxay degenaayeen Yamaama islaamnimadiisana waxaa sababay in rasuulku sallallahu calayhi wasallam si wanaagsan uu la dhaqmay oo ninkan saxaabada ayaa soo qabtay markaasaa waxaa lagu xidhay tiir ka mid ah tiirarkii masaajidka 3 cisho ayuu ku xidhnaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu faray in cunto iyo cabitaanba loo geeyo 3 cisho maalin kastoo ka midana wuu u tegay isagoo xaalkiisa wareysanaya Thumaamana wuxuu ku jawaabay haddii aad idishana nin rag ka dhashay baan ahay lagamana hadhayo haddii aad isii daysana nin abaal gudayaan ahay
saddexdii maalmood ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu tagay saas ku jawaabay markii dambe ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri Thumaama iska sii daayay wuu tagay dabadeetana jidku ka soo noqday markaasuu islaamay waxaynu u noqonaynaa sulhul Hudaybiyah haddaba nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiis ayaa baxay iyagoo doonaya inay Maka tagaan si ay ugu soo cumraystaan dagaal uma jeedin saxaabada nabiga la socotayna waxay ahaayeen 1500 oo saxaabi haddaba markii Quraysh ogaatay in rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu soo baxay ayaa waxay isku waafaqeen inay Kacbada u diidaan markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu Hudaybiyah soo gaadhay ayaa Quraysh waxay u soo dirtay rasuulka cid weydiinaysa sababta uu u yimi deeta rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu diray Uthman si uu ugu sheego ujeedada uu u yimi markii Uthman Quraysh u tagay wuu ku habsaamay deetana muslimiinta dhexdoodii waxa ku faaftay in Uthman la dilay markuu arigaas dhacay rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa ayuu u yeedhay waxaanu kula heshiyay geed hoosteed isagoo kula ballamaya inaanay yaacin bay'adana waxa la yiraahdaa bay'atu ridwaan waana ta ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay haddaba Quraysh markay ogaatay bay'atu ridwaan ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam cid u soo direen waxaana la galay heshiiskaas oo ah inaan 10 sano la dagaalamin oo la isnabad geliyo waxa kaloo lagu heshiiyay inay sanad ka noqdaan oo aanay Kacbada gelin waxa kaloo lagu heshiiyay in ciddii muslimiinta ka timaada ee Maka timaada aanay muslimiintu soo raadsan ciddii Maka ka tagtay Madiina tagtana la soo celiyo arrinkaasi inkastoo saxaabo badan ku adkaaday haddana sida Ilaahayba sheegay muslimiinta wuxuu u noqday fatxi Allah wuxuu yiri وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم waxa dhacda inaad shay dhibsataan shaygaana khayr fara badan idin ku jiro waxa kaloo dhacda inaad shay jeclaysataan shaygaasina shar iyo dhibaato uu idin leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha saxaabadu weydiiyeen waxa kamid ahaa inay ku yiraahdaan sawta ilaahay noo ballan qaaday inaynu xaramka galayno لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون رسولك صلى الله عليه وسلم وحوري أنا قمان أران سنة كان أيها قليسان لكن إلهي وحينو بالله قادة إنه قلي دونه فتح قاوين إلهي سبحانه وتعالى وصورة الفتح كشاقينة وحوية صلح الحديبية مركو رسوله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كصان قضي بقردي ayuu waraaqo u qoray isagoo islaamnimada ugu yeedhaya qaarkood si wacan ayay ugu jawaabeen Sahiraqla oo kale oo boqorkii Ruum ahaa iyo Muqawqis oo xaakimkii Masar ahaa waliba boqorkan Masar rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo hadiyay 2 adoomood oo midkood ay Maariyatul Qibtiyya ahayd wuxuu kale u soo hadiyay baqal boqorrada uu fariimaha u diray qaarkoodna si xun ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ugu jawaabeen sida Kisra oo boqorkii Furus ahaa warqadii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu diray uu jeexjeexay waxa muhiim ah inaynu baraarujino sheekhu halkuu leeyahay boqorrada waraaqaha loo diray waxa kamid ah Najaashi oo islaamay wa khata Najaashi wuxuu islaamay qabla hijrada ka hor saynu soo marnay waxaanu islaamay hijradii labaad ee loo hijrooday ardul Habash Najaashigii ka dambeeyayna muu islaamin wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk